waxa u baahanahay gabadhaas oo badan inaan helno ilaa 100 qof ama 50 qof oo gabadhaas camal hadaa helno wadanka wax iska bedelayo far badan oo waxa jirto wadankan in laga hadlo u baahan tahay dhiiqada wadanka dhibaatooyinka wadanka waaye dad quruxda badan tiimka noo soo jeediyeen aad u mahadsanyiin aniga wax su'aal ma qabo laakiin comment yar raba inaan baxsado laba qodob ah meesha laga dhawaajiyay qodobka koowaad wuxuu ahaa dhalinyarada Soomaaliyeed maxaa ka duway dhalinyarada gobolka tusaalahan oo kale Kenya Ethiopia maxaa ka duway oo ayaga macnaha waxyaabaha qaar dawladda waxa ay rabaan ay ku qasbaan horta problemka dhalinyarada Soomaaliyeed haysto waxa waaye dhamaantood dadka maalin walba banaan baxo dadka maalin walba aragno marka all in all marka isku soo duubto hal dhinac ay u socdaan laakiin waxa waa in siyaasad iyo waxyaabahaas ka hadlayaan dhalinyarada Kenya waxay diyaar u yihiin in aan maciishada lagu kordhin sidaas darteed maciishada si aan loogu kordhin waxay diyaar u yihiin inay u dhintaan laakiin Soomaalida marka macnaha maadaama mowduuca waxa uu ku saabsan yahay hoggaanka dhalinyarada dalka haddana dhalinyarada Soomaaliyeed ayaga dhan 70% xitaa 90 aan dhaho hal dhinac ay u janjeereen oo ah dhanka siyaasadda marka dhalinyarada laakiin mawaadiic fara badan oo waxa jirto wadankan in laga hadlo u baahan tahay dhiiqada wadanka dhibaatooyinka wadanka waxa u baahanahay gabadhaas oo badan inaan helno ilaa 100 qof ama 50 qof oo gabadhaas camal hadaa helno wadanka wax iska bedelayo laakiin hadii 100 qof hadii hal gabar ka soo dhaxbaxdo inta kale laakiin siyaasad ay ka hadlayaan wax janjiyo ma iimaanay saacadihi bajaaj oo 100 qof u baahan la ka hadlayso maxaa la jiray shidaalka wadanka qaaliyo waxyaabaas ka hadlay u baahanaa soo qodob kale oo waxa jira oo ustaadku ka hadlay waxay ahayd dhalinyarada Soomaaliya markii la joogo waxa aad loo buunbuuniyaa qofka aad u hadalka badan meelaha galgalka badan waxa la buunbuuniyaa qofka waxa arkay qofka duu galgal badan inuu bari ka maalin oo meel fiican galay waxa keentay dhalinyarada sababtaba ee ma hal dhinac u janjeeraan mar walba kaamirada iyo hor taagan yihiin banaanbaxyaasha ay sameynayaan waxa waa in macnaha shaqooyin iyo waxa isku raadinaan marka laakiin dhalinyarada hadii hal isqeybiyaan waxyaabo mowduucyo oo wadanka u baahan ay ka hadlaan ay idinku waxa aaminsanahay kacdoonada Kenya Ethiopia iyo wadamada kale ka dhaco camal ina sameeyo